2022 FIFA World Cup in Qatar. Waad saxan tahay 2022 waxaa jirta dhacdada kubadda cagta ugu weyn dunida waana FIFA World Cup. Haddaba FIFA World Cup waxaa jira laba arrin oo gilgishay. Mid waa in aad aragtay oo aad maqashay in muslimiinta iyo wadamada Carabta taageerayaasha ka soo jeeda ee u daawasho tagay Qatar ay olole ku bilaabeen kuna kaceen saxaafadda Yahuuda iyo telefishinada faafiya Islaamofobiyada kuwa oo cabaad afka labeeda yeeraya bal ila daawo muuqaalada soo socda aan ku raaxaysano waan ku raaxaystaa jabkooda hoos ka sii على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني yaha gaalka sahyuuniga ah intuu xishooday uu yaxyaxay uu wajigiisa isku yaryaraaday uu isdhahay asaga dhan maxaa qatar ku keenay maxaa carabtan ka soo doontay intuu iscuncuna muxuu ka qaadahay hadal ardo ardi yalla yaa sahyuuni ya xaqaan waa la ceyri ad uu yaxyaxay uu isnacnacay ka qaada hadee dhulkiisa waa abti adaa soo raadsaday leave bartamihii 2020 iyo 2021 bilowgeedii waxaa dhacday wadamada Carabta qaar ka mid ah iyo dawlad ku sheega Israa'iil anaga ma aqoonsanine ayaa waxay kala saxiixdeen alla heshiiskaas waxaa garwadeen ka ahaa odaygii tagay ee Mareykanka usbuurkii Trump ayaa heshiiskaas garwadeen ka ahaa way isaga qanceen dawladaha qaar waxaan maqlaayay Bahrain Imaaraat Sacuudiga laftirkiisa Suudaan iyo dawlado kale ayaa waxay la saxiixdeen heshiis isafgarasho iyo ganacsi ah Masar inay ku jirtaa Rajeena iyo Morocco waxay la saxiixdeen dawladda sahyuuniyadda Israa'iil laakiin Qatar waagaas way isku dhacsanayeen Carabta kale oo way kala go'naayeen waaba tii waagaas maaragtay saaxiibo dhan waxa ku soo haray dhowr dawladood iska yaryar oo Soomaaliya iyo Eritrea ay ka mid yihiin laakiin hadda 90 degree ay saacadu dib u wareegtay waxaana loo sheegay dawladda sahyuuniyadda ay ku riyoonaysa inay Carabtu iibsadeen qadiyadii Falastiin inay jiraan Abraham Accord iyo wixii Donald Trump iyo wiilka gabadhiisa qaba ay la wareegayeen wax ka weyn inay jiraan meeshan wada dhalasha jirta cirqi baa jira carabnimo wax aan laga guuri karin dhalasho ayaa jirta wayna dareemeen aad iyo dadyoga Carabtu u karbaasheen meediyaha iyo saxaafadda Israa'iil waxaanay meelaha la taagan yihiin waa nalagu dulmiyo meeshan waxaana lagu sameeyay harassment baba ayaga ma arkaan miya kumanaanka hooyooyinka uur kale iyo carruurta ee ku leenayaan Gaza ma arkaan kaliya waxay arkaan wariyaashooda lagu mudaharaaday iyo telefishinadooda lagu booqay kaliya taas ayaa waxay la tahay adduunkii oo gadoomay عجيب خير الله سيه dhalinyaradan dadaalaya ee mujaahidiinta waxay gaarsiiyeen heer saxaafadii Yahuuda ee qariyaan dhalashadooda ay sheegtaan wadamo kale sida odaygan ila daawo midoo ku dhigay wuxuu dhahay where are you from ninka wariyaa wuxuu dhahay Israa'iiliga Ecuador markaas ku qoslano markaas dhahay no this is not Ecuador dhahay FIFA Palestine odayga kadib uu soo xasuustay inuu Israa'iili ah laakiin Ecuador taabanayd markaas dhahay no it's free sidoo kale meeshan ila daawo yar Sacuudi ah iyo waxa dhex maray saxafigan kale ee Yahuudiga ah أنا مش إسرائيلي لا ما تقولش على إسرائيلي أنا مش إسرائيلي لا ما تقولش بتقول أنا من ثاني أقول لا أقول عشان أنا مش إسرائيلي على يا حبيبي على يديك على يا حبيبي وأنا أقول دايما عارف لا ترفع لسانك لا ترفع لسانك إيه اللي عندك لسانك لسان لا ترفعه لسانك لا ترفعه لا ترفع لسانك والله يرفع لسانك لا ترفع لسانك ولو تسكت محلك محلك تسكت لا محلك تسكت ولا كلمة لا ولا كلمة انت ولا كلمة يلا بس وراه انت يلا يلا لا ترفع صوتك aad bay soo jeedinaysa horta mawduucan inaan ku maartay fasiroon ku raaxaysto wuxuu dhahay intuu fahmay inuu Israa'iili yahay anta Israa'iili markaas uu dhahay ana mush Israa'iili markaas uu dhahay anta Israa'iili intuu isku naxay markaas uu dhahay ana ma afaham ma taqool markaas uu dhahay shub ka dhahay waraysiga inuu ka joojiyo isciilano markaas uu qeeliyo ana arab ana daa'iman arab mid kale oo luqad taagana wuxuu dhahay la tarfac sawtak alla uskut ولا كلمة هل إحتام ديكرت الله لا ندير نمو وكراني هذا فقر العرب وحنا الروانية
aadan ku faraxsanahay waxaan leeyahay walaaleen Sacuudiga Allah idin daayo boqorkana Allah karaameeyo guuleysta jiro oo jooga waatan carabta la yaqaanay waatan carabta sharafta lahayd guuleysta barnaamijkan wuxuu marka barnaamijka soo dhigay xaqaa'iqda jirta iyo wadamada islaamka ee shucuubtooda u bahdilaya nidaamkan westernka ee sii guuraya ee Zionismka iyo barnaamijyadan maxaa ku dhahaa gaalnimada iyo waxyaabahan raqiiska ah thaqaafadan baqtiday ee bahdilan dadka ka gadaya ee ku dirqinaya ee Afrikaanta ama Islaamka ah ayaan la yaabanahay xilli la fahmay dhagarahooda koobkan adduunka iyo lagu fahmay dagaalka Ukraine inta ayaan jeclaynaa mowduucan uga baxo mowduucyada kale ee soo socotana la soco inta ka horeysa amaana Allah ku raaxaysta waqtigiina